السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني wanaagsan meel kasto aad joogtaan insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa talaalka caruurta. barnaamijkan wuxuu la socdaa barnaamij aan horey uga soo hadalnay oo markaas la xiriira ama ku saabsan talaalka caruurta qaybtiisa koowaad. maanta insha Allah waxaynu ka hadlaynaa barnaamijka qaybtiisa labaad oo aan horey uga sii socon doonaa. sida aynu soo sheegnay talaalku wuxuu muhiim u yahay ilmo walba ayuu markaas muhiim u yahay. talaalkuna waa xaq ay leeyihiin caruurta, waana waajib saaran waalidiinta caruurta dhalay inay markaas ilmahooda talaalaan si markaas caruurta looga badbaadiyo cudurrada markaas dilaaga ah oo ilmaha u keeni kara markaas dhibaato weyn noloshiisa. haddaba talaalku waa aalad markaas muhiim u ah oo markaas waxtar leh. sidoo kalena waxay markaas ilmaha ay kaga hortagtaa cudurrada dilaaga ah qaarkood. cudurradaasi waxay qarniyadii hore mas'uulka ahaayeen inay markaas naafeeyaan ama ay dhimasho u keenaan malaayiin caruur oo markaas isugu jira caruur yaryar iyo waliba caruur waaweyn. sidoo kale talaalku wuxuu markaas muhiim u yahay ilmaha difaaca jirkiisa, sababtoo ah qofka weyn iyo ilmaha isku mid maahan. ilmaha mar walba difaaciisa wuu iska daciifsan yahay ama uu ka yar yahay qofka weyn markii loo eego. haddaba talaalku waa waxyaalo markaas la isku duro ama afka laga qaato oo markaas ka samaysan jeermis ama toxin la dilay ama jeermis nool oo markaas awoodiisa hoos loo dhigay, ama wax kamid ah waxyaabaha markaas jeermiska sida borotiinka jeermiska. haddaba talaalka caruurta la siiyo waxaa loogu talagalay in uu kordhiyo difaaca jirka ee markaas ilmaha yari, si uu hadii ugu dhaco cudurkaasi laga talaalay uu jirkiisa isaga difaaci karo halista cudurkaasna uga badbaadi karo. laba arrimood ayaa marka ugu muhiimsan ujeedada laga leeyahay adeegsiga talaalka, waxayna kala yihiin in uu ilmaha laga badbaadiyo dhibaatooyinka iyo dhimashada la xiriira cudurrada halista ah ee faafa, iyo in bulshadu ay ka badbaado guud ahaan cudurrada faafa isla markaasna la xakameeyo cudurradaasi inaysan sii faafin. sidoo kale sida caadiga ah caruurta laba meel ayaa jirkooda laga talaalaa, kuwaas oo kale ah caruurta da-dooda ay ka hooseyso 12 bilood waxaa laga talaalaa cajarada, laakiin caruurta da-deedu ay markaas ka sareyso 12 bilood ama sanad waxaa laga talaalaa garbaha sida dadka waaweyn oo kale ama muruqa ku yaala garabka. haddaba waxaa jira cudurro markaasi gaar ah oo loogu talagalay oo in markaasi muhiimad gaar la siiyo caruur kasta ama ilmo kasta laga talaalo ay muhiim tahay. haddaba cudurrada laga talaalo caruurta waxaa kamid ah markaas u baahan in ilmo walba talaalkiisa la siiyo. waxaa kamid ah cudurradaasi cudurka la yiraahdo dabeesha ama booliyada. cudurkaasoo ah cudur runtii caruur badan naafeeyey oo noloshooda dhibaato badan markaasi u geystay. cudurka waxaa kaloo ku xiga cudurka la dhaho gowracatada ama afka qalaad lagu dhaho diphtheria. sidoo kale xanuunkan la yiraahdo tetanus ama tetanada. sidoo kale xiiqdheerta, cagaarshowga nooca loo yaqaano hepatitis B virus. sidoo kale waxa loo yaqaano jadeecada ama misaliska afka qalaad. sidoo kale waxaa kamid ah xanuunkan la yiraahdo qaaxada ama tuberculosis ama TB-da. sidoo kale waxaa kamid ah xanuunka la dhaho meningitis ama qoorgooyaha. dhammaan cuduradani waa cudurro u baahan in markaasi ilmo walba laga talaalo intuusan markaasi gaarin wixii ka sareeya 2 sano. يعني 2 sano inta ka horeysa waa in ilmaha markaa laga talaalo intuu yar yahay, si hadhow hadii xanuunadan ay ugu dhacaan uusan wax dhibaato aysan u geysanin oo aysan markaas caafimaadkiisa aysan wax yeeleen. caruurta qaar xanuunadan hadii ay ku dhacaan qaar waxay naafeeyaan xubno kamid ah jirkiisa, qaar markaas waxay naafeyn karaan dhagihiisa ama indhihiisa oo kale. marka waa cudurro saameyntooda aad u xun tahay oo ilmaha laga yaabo xubnihiisa jirkiisa ugu qaalisan markaasi ama adimadiisaba ay ka dhigto ama ay naafeyso. marka waxaa muhiim ah ilmo walba marka uu dhasho ilaa intuu ka gaarayo markaasi 2 sano, intaas waqtiga u dhaxeeya in hooyo walba iyo aabo walba ay ku baraarugsanaadaan ilmahaas in talaalkiisa ay u dhameystiraan oo talaal buuxa u qaato. dhammaan talaalkaas iyadoo markaasi ilmaha laga talaalayo xoogana la saarayo
cudurada markaasi muhiimka u ah. Cudurro waxaa jira muhiim aan ahayn oo aan saa u sii dhib badnayn, laakiin cudurro waxaa jira la wada yaqaano oo ilmo kasta u baahan yahay in cuduradaasi laga talaalo sida aynu soo sheegnay. marka waxaa muhiim ah ilmo walba markaas inuu talaalkaas qaato. sidoo kale waxaa jira markaasi waxyaabo ilmaha masalan markuu uu qaato talaalka waxaa dhici karta inuu markaasi la kulmo مثلا meesha laga talaalo kale inuu isku arko barar yar, xumad yara ama cuncun oo meesha ilmaha laga talaalay. laakiin si waxaas wax sa u sii weyn ma ahan, waxa laga yaabaa 2 saac kadib inuu ka bao. sidoo kale waxa laga yaabaa ilmaha inuu isku arko qandho yar in ilmaha qabato ama inuu markaasi laba yar dareemo in cuntada uu diido saacadahaas la soo talaalay saacadaha ka dambeeyo kale. laakiin wax sa u sii weyn ma ahan oo isla maalinkaasba waxa weeye ilmaha uu ka baayaa. saaxiibayaal qaybteeni labaad ee ku saabsan talaalka caruurta maanta intaas inoo eegyahay waa inoo qaybta xigta insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddii aad waxun ka faa'iiday la sii wadaag asxaabta, haddii aad hore noola joogtay laagta nagu dhiirigeli, haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir si aad markaasi uga faa'iidaystid muuqaalada caafimaad ayna soo gudbino.